Diyar baan ku faraya waxaad farow tidhaahdaa dadka faraha badane farxadayda necebo. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسر دوادا برامج كيني منطقي محا عصب وكلا سعون جرتين تي في قدرك حرمتها نقولنا هي مقالة الله سبحانه وده حرمتها قبل كسر وحب برامج كألا بدنا نسعى سيسانو منى أحمد عبدي منى منطقة برامج كم حان كسر عسنا تضواد وربا قف الشيء مهمة ما أنت وحنقول لحنا حاجة يسوقنتا وحب برامج كم مرتيوا عبد الشكور علي أحمد أو كم قاعد هال أبو رجاجو wuxuu ka mid ahaa martidii bugfeerka ee ka soo kicintay Muqdisho ama Jigjigo safar u dhawaanahan ku marayay gobolada Soomaaliya ugu horeyn ku soo dhawow halaabur jeego barnaamijka Mandeeq iyo xarunta gobolka Sool doga waan ku farxsanahay waqtiga aan la qaatay iyo soo dhaweyntiini daranayd iyo maanta oo aynu tii xaqana xarid naga xigto xaqana cawski naga xigo xaqana geeli naga xigo xalkana waxaan ku yiri ma sha Allah cimilada aadiyad ma sha Allah waa tahay Cabdishakuur lasaanood baatimi baljoog lasaanood markii maxaa ka aaminsan magaalada markii aad timid maxaad aragtay farq weyn u dhaxeeya wuxuu yiri salahan wuxuu yiri jawi farax leh waxaan ku arkay ma sheegay jawi farax leh cirko jiqo daruur jaad walba ba yeeshay jidhaamaha biyaha jiifiyay oo jabaqdu ay deysay dooxooy kala jaad horuhu jibaadayo intaas oo naftu jeceshahay bas ku jaan go'an marka waa la sacaanood iyo suuradeedii gabay aad qurux badan oo la dhaho masal wuxuu ahaa walaalo 6 Juun 2019 waxa jiray nin yiraahdo fogaan arag oo xidhnaa 42 sano buu xabsi ku jiray Itoobiya gudaheeda ah waxa la xidhay 1997 la xidhay isagoo 18 jir la xidhay wuxuu soo baxay 2019 ku soo baxay halka Gabiley gobolka Gabiley baa la keenay subaxii markuu waagu bariyay timihii wixii laga xiray isagu de waxay la ahayd sidii qoomkii nimankii la oran jiray asxaabul kaafigi afar cashay waxay la ahayd inuu meesh ku xidhnaa wuxuu yiri bargaad ugu qaado bal halka ay madaxweynaha xaasiyadii haleegeeyo ilmo iyo marka de xaafadii ku soo ururtay ku ag jooga qoslay waxa dhaheen way la yaabeen ninkan ma asxaabul kaafigi la sheegayba su'aal buu weydiiyay marka wuxuu yiri waxa la yiri waxa sabab hore dhinteen ragaasi way dhamaadeen Maxamed Siyaad iyo ragaasi way dhamaadeen Ali Samatar iyo waxaasi waa la haysto markaasuu dawladda soo dhacday markaasuu yiri saasaha wuxuu yiri marka bal waa yahay asxaani sameeyo xabsiga saaran dib ugu celiyo xabsiga soo saaray dib lagu celiyo su'aashaasan xamar aan faras soo qaatay inaan weydiinay wax ku dhaliyay afar saac ilaa faras soo qaatay xamar halkaasaan maray afartii habeenimo ugu tagay Gabiley oo dambe ninkii halbaabka ku garaacay waxaan ku yiri maxaa ku dhaliyay su'aashaas ah xabsi 42 sano aan ku jiray lagu celiyay maxaa ku dhaliyay gabaygan marka dii aan jawaabahan aan ugu wadaa wuxuu yiri caday soo weeri marid lama cuno iyo marada kaaleed ma qorno looma horo jaalkayo midab teermaan hadduu gabay martabo leeyahay lagu midoobayo تيمي عدو مرايضة هذا فعل كموجاني داحو مريي سوان ملقلي مالين إيا ليلي لقيه ملاسني وانا قوم مراداني لقيه ملاسني وانا قوم مراداني تاريخ ومرخاتي إنو ما حينون دراي ما فعملها آدمي قوحي كون من ترياني ميدك تالي وحي حوك ستاه ما يرقع تضعي مقابلة هشادا baa ka wacan maydhanaan kale dawladnimada muran maaha iyo maandhow reer hebel burci baa maqaamka ilaahay jeexay marinkii waa tuu midoobay ku yiri meeriski gabay anna waxaan la meehaabayaa waa midoo kale adduunyadan maraabaysan ee madaxu hooseeyo adduunyadan Mareykaan siri maamul kaligaaba adduunyadan sawaaxili mukula maare laga waayay adduunyadan muslimka iyo gaal la isu kala miiray adduunyadan munaafiqu kibray muumin talin waayay adduunyadan ninkii maal lahaa maanta yahay caydha adduunyadan ninkii magac lahaa yahay miskiinkeeda adduunyadan ninkii muuqan jiray mootan yahay jaalle haddii aan macnaha dawladnimo garan lahayn maanta
kenyaati kuma maadsadeen madalan joognaaye aan milicsi kuu soo hordhigo maalintii godayey saddexdii marayd baan haddeer iga maqnaateene imaaraad ma muujeen awoodna mana maageene ingiriis macdaaradan berbera kuma mushaaxeene faransiis maraakiib badaha kuma midhaafeene jaynuhu malay kama gurteen kama macaasheene talyaanigu ma laayeen midkii doon ku soo mare marmarsiiyo kama ay dhigteen waa mintidannaaye marmarsiiyo kama ay dhigteen waa mintidannaaye siishalis midmaaxyada mardhexe milix ma siiseene isma soo mutuxiyeen wale wiil maraykaniye ruush kama maqnaadeen miig kuma duqeeyeen mardhexe maxasti hiiraane macdan kama gurteen mudug intay mooto kiciyaane ruush kama maqnaadeen xeryahan magacu joogaaye milatarigan muusanaaba iyo cunaya mirooga amisom ushaar kuma hesheen magac ilaahay musafani mataal kama dhigteen madal dharaareed maalixaasaabaa musafani wuxuu yidhi wiil baa gabadh dhirbaxay ugandhays markaasuu yidhi waxaan u diranaa askariga gabadh dhirbaxay soomaaliya musafani mataal kama dhigteen madal dharaareed maahmaah hindiya uma noqdeen magac xumaantoodu afartaa malkadii aan la rabay madaxa mau saaray taariikh maguuraana iyo mahadhadeediidhi murti dhexala sugaan milgele milicsigeediidhi sida aar maruuriyooday iyo maarahaan ahaydhe afar kalena maabkaan dhigay muhundiskaygidhi ha yeeshee marxalad taagan baa laga midh qaataaye masalooyin dhowroon arkaan idinma gowsiini masalooyin dhowroon arkaan idinma gowsiini warbaldaya milgihii aan lahayn moolka lagu tooriye warbaldaya mudnaantii cisigii meesha laga waayey warbaldaya gumaystahan mar kale madaxa loo dhiibtay warbaldaya xornimadii mafaca maanta laga doortay warbaldaya xornimadii mafaca maanta laga doortay warbaldaya kuwii maahir dhacay ee muruqa noo sheegtay iyadoo inoo muuqatay nagu hormaalaane warbaldaya midnimadaan lahayn mooshin laga keenye cali mooge murtidii yidhaa ee markhaati yahay reer xalayta siixdoo la miray maganayaa sheegay maxasii carruuraha ka laah maganayaa sheegay miinada walaalkaa u qari maganayaa sheegay in markhaati beenaale furo maganayaa sheegay atomiigu inuu maamul yahay maganayaa sheegay subxaan allah intaasoo masalo baan arko maanta wada taagan haddii aan macnaha looga baxo idinma goosiiyo mashaqadu markay kugu dhacday murugta hawshaadu ee meel cidhiiryoon arrini kugu maraabayso allaa mudan waxaad maalintaa midig u taagtahay marka uu muraadkaad lahayd midigta kuu saaro ee kuu maceynay mar dhexe haddaad ku mulaciyeeyo allaa mudan inaad mahadisaa maalin iyo leyli markaasaa sharcigu waa mid qura maamulkaa yahay lugtii madaxa dhaaftaan ka bixin muruq xanuunkiisi waana meesha aan taagannahay muranku waa ceebe waana meesha aan taagannahay muranku waa ceebe maandeeq kuwii naga dhacay muruqa noo sheegtay iyadoo inoo muuqatana nagu hormaalaya maantana si uu wada mulkiyo miinada u keena ee maxasta naga laynaya muruq madaxa goynaya magacyana u kala qaybiyo maamul goboleedo nimanka mushaharkooda ay carabi miisaanto soo inuu kala miiranaa muxubadood maaha soo inuu midnaba qaaliya muhandisnaa maaha soo inuu midhaha beerano muruqsanaa maaha soo inuu qabiil waa mugdiye muqlasnaa maaha afartaa malkadii aan la rabay madaxa mau saaray taariikh maguuraan iyo mahadhadeediidhi murti dhexala sugaan milgale milicsigeediidhi sida aar maruuriyooday iyo maarahaan ahaydhe afar kalena maabkaan dhigay muhundiskayga dhabayo marun baan anoo miidhan iyo maarayaal kicini marun baan saddexdii iga maqnayd aan mulkiyayahay marun baan maqaam dawladnimo maalin dhow imane markaasay muqdisho moosko iyo jeyne maalgelini markaasay maraykan iyo yurub magana weydiisan markaasay talyaanigu mar dhexe noqon mataalkoodii markaasaa magaalada jarmali maabka laga weyni markaasaa iglanimeeday iyo maarag ay noqoni markaasaa macdarada hindiya muusanaw bixini markaasaa maleysiya tahay mudugu soo aadi markaasaa yuhuud meedadihi meel la dhigo weyni miyamaar makiinadan ag dhigan muusadoo liqe milyan iyo milyan qof baa soo muslimayaane markaasaa islaamku midii dunida maashayni military cudud muuqatana ma dhow helaynaay
kitaabka alle ugu mudan sharciga la isku maamulo insha Allah manhajkeenu noqon maada diiniye muddo suuga yar sidaan maganahay waa mas'alo weyn idin alle marxatu ka noqon buu mood ku dilin ninka ana jawaab faras ka jaraystay baa waxa ka shabaqlay ka soo daayay ha marka kaasi gabaygaas dhacdaas waa tahay cabshakuur dee gabayga masalo iyo qisadiisii iyo habka uu ku curtayba way wada arkayna kii bulsho weyntiba waxaa dhahaa Soomaalidu inta badan abwaanada ama hal abuurka gabayga waxa ku keena qiso ama dhacdo ama hibo u leeyahay ama waa hibada haysiin hal abuur jeego maxaa la oran karaa munay sugantu waa hibo iyo hidaraaco oday aabahay baa gabi jiray wax kamid ahayd rag bay xafaaltamayeen wuxuu yiri warkii aabaha dhaqaye ogada casaan jiray isbi kuma ciyaartay turub isbi kuma ciyaarteen geela haygu eedin anna haygu urugeen bi marka de golof fuulku way yaqaaneen oo walaal hadda in sheekha ay yahay sheekhna waxa ay dambe laakiin sugantu waana hibo waana hidaraaco ama santahay halkaas ka keen waa tahay cabshakuur waxa tiri xaqii aabana kama maqna garafuulku darago dhan weeyaan cabshakuur intii adduunada joogtay waxyaabo kuugu yaabka badnaa oo aad aragtay oo soo taagnay wax kale alaan doonay hadda gobolka Sool Afrika ashan joogay hadda xalay waxaan ka imid taleex baan ka imid subaxan baxay subaxii ka horeysay baan soo kacay tarka degan hortiisaan soo fadhiistay gabar baa halka soo baxday dadweynaha darawishana waxa la xaga hablaha quruxdooda way haysteen xaga dagaalkii waxa isku darsadeen marka xogaa aan sasir ka raqabo isla wareer nimanka hablahoodii ba muri wax kama gabadhii waan istaagay oo waan la hadlay oo abar baan la beesh kula haasaabo laakiin waxa kala saaray way anigu tulumjin biyahayd si biyahayd habeen labaadkii baan safarkii tan uga baaqday madaxii uga baaqday baa hadan inta waay afar meeriso marka aan ku cabriyay baayri wuxuu yiri sida awr mirooda oo in badan doodi miranayay oo mugu xareed maaxatiyo daran midhaafaya oo geel la meeracay arkoomada xalladlaadsi oo micida seedaa iyo geed ismarinaya oo koran micida weynaatay macaanka soo aaday oo meelqiyada gooyay iyo kruuska maaroobay oo marcuradka iyo qaalmihii meel isugu keenay ama ay gar maqaarkii hor yaal godol lama haysa muuqaaga goortan arkay baan mililo coodaay sidaan ahay maraan badarta lagu maadsaday midii aan calamaday baa ahayd maalin gelinkeedii meel suu abaan horiiri baa ay marxaati yahay majaafada xun lama guursado iyo taa milgalahayn waxa dumar rag ugu maahaya midabka weeyaane waxa dumar rag ugu maahaya midabka weeyaane soo mar kula kulma ma ku haysay waa tahay dawad u jeedeen oo hal abuur jeega wuxuu yiri gabadh aan hadda wali si wacan u hay ayaa si rufud qalbigayga dhum ku tiray oo reer Soola aad iyo aad xalay daraawishta gabdhaha waa lagu ogaasaas inta kadib cabshakuur xamarna guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena fariinta aad dirayso u dirayso hal abuurada iyo dadka Soomaaliyeed ugu dambeyn iyo sidoo kale gabayga ama maansada aad nagu soo xirtay barnaamijkan qiimaha badan munaay waxaan ku soo gabagabeynayaa maadaama aan joogo xerada daraawishta horta adduunkan wax ka saabad waqti bay leeyihiin marka bal mar aan cabirayay taariikh suugaanta waxa qabsatay moogtahay tagto taagan iyo timaado tagto wax tagay taagana wax maanta taagan timaadana waa saadaal bal marka ku soo gabagabeynay gabay inta koobsaday taariikhdaas iyo taaganta iyo timaadada insha Allah waradooda baa la gabayga ها كردada kulay fardihii daraawishta faras kamid ah baan ugu magac darsaday wuxuu yiri marka gubaabana waya gubaabo waana Soomaalida ka turjumay baan rag shisheeye ah kula xisaabtamaya wuxuu yiri kaada gabayga waa tan kala rakahiyo xiray ma kulaalin maasooyinkan keenadeen jiray kadiido kruuski maridin ka hawaa bari kulkan daa iraada waxba kiciye jaalow kun hore oo murtida keediya kala halaysroone kana waa mid idin kicinayo keena dhagihiin adduunyadan iswada ku rasay kaabkooda haysa adduunyadan kuwa shalalna kaamuka u faylay adduunyadan kuwan koolin jiray maanta nagu kaaji adduunyadan
hablihii kadinka geel laga karoorayay gabal laga bixiyo 100 halaad iyo faras iyo qori waxa laga helaa Soomaaliya laga helaa sida taariikhdu kayo adduunyada hablihii kadinka geel laga karoorayay ka kuma qaxoontiga ugu jiray local tirinayo asa qayrkoodna kuureeyeen kaare wada saaran hablihii kadinka geel laga karoorayay ka kuma qaxoontiga ugu jiray local tirinayo qayrkoodna kuureeyeen kaare wada saaran nin waliba wixii uu kasbado kaamil wuu heliyay inagoo karaamaysan oo nabad kulaalayna asaageena noo kalaami karin mad ka kibirteeni ka baday waxaan kula sanan kaalay ay niriye taariikhda keedka hadan kadib ka soo qaato sayidkii kartida lagu yiqlana karaameeyay ee geeshka soo kiciyay kuman daraawiish kuwii koofi keenada gashay kaadida u diiday kabtanada kuwii keenay galay kariyay jirkooda kristaanka nimankii daldalay oo kufriga laayay kulalkii kuwii ka xanad iyo keenti ku eriyooday sida awrta koranka kuwii kuriyada u saaray kowdii habeenimo ku dhaxanta kowdiiday ee koobka shaaha kaliga lagu karinayay koonfur iyo waqooyi kuwii lagu karaameeyay nin waliba wixii ka duyaal wuu kal tiriyay halka koodisiibeena kicii wadanka baadeene kabad baa la wada yurtaan kurayo waayeene kuwii kabaha laga goynayay lana kadeedayay iyagoo karkii qaba hadda soo kala celiyeen maanta ba kismaayay degay kolonyadoodii bariitana korkeena ay rabaan inay kristaane ka kacay sidii koronto dabkootada u laaya kun haday ku dhimato oo ka hada kurayo fiiga marna inaysan keenadana gelin kaamil ugu seexda afartaa sidii korayo kololodoodii sidii aarin badan keen ku jiray kowana ka cadhi shabeelka waxay soo weerartay kaartada degodhi kabtan ciidan kolonya wato keedsanaan jiray kiiskii gumayso marka la korso loo galay afar kalena kurkursiga bartibkoodii dhibay kulan xiisa badan buu ahaan keedna gali doona kun habeen ka badan baa la qori kalimadeennii sangihii ka qaadan jiray saari kooraha kadis bay ku noqon oromadii ka hawaa bari kukuyadii baa ku xiga koromada ahaay kadibkii ingiriisku waa ka dibiyeen kolonial talyaaniga ku gali wada kamaan doos kuuba iyo kristi watana koodadkan jabini kuuba iyo kristi watana koodadkan jabini kabahay inoo qaadayaan kooxda reer Yurube kabaha bay inoo qaadayaan kooxda reer Yurube kulligood yahuud weynu karin sida kabaabkii insha Allah waxa noo kadfeen way ku hanayaan markaasaan nafsiga kadsanaa kaar ku soo ridani markaasay sidii kadima gel kaalin soo hogani markaasaan biyaha koob dari ku diye aarlaayay markaasaan u kaalay ku oran kaarka caydnimo markaasaan u kaalay ku oran kaarka caydnimo insha Allah waxa noo kadfeen way ku hanayaan Falastiin xornimo ka wada oo kaafiday heliyay kartidaana inaad leedin kaamil ugu saxiibay kaasina waa kordada naadiya waatay daawadayaal intaas uu nageeyahay barnaamijkeeni Mandeeq iyo maxaa cusub oo maanta marti igu ahaa hal abuur Cabdishakuur Cali Axmed hal abuur jeego oo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku yimid casumaadii bugfeerka ama bandhig buugeedkii carwadii magaalada Laascaanood anaka iyo bahda TV-gu dalka waxay kaga tageynaa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh daruuriyay fogaatay ku fida adduunyada midiyar baan ku faraya waxaad farow tiraahdaa jacaylkan fudaydsaday maygu ganay falaadhi dhulan laga filayniyo